السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالد بحالد أيا كدرن waxaan hadaba muuqaalka marka uu ku soo gaaray ka codsanaya ina cadaaladda u heelisid waayo ogow marka banaanka taagan tahay walaal miskiina oo lagu gardarooda xabsiga ku jira oo arintiis aan rabaa inaan cadaalad ugu helo taas oo madaxda iyo dadka kale ee mas'uuliyiinta ee wadankan u dhaartay ee indhaha ka dabooshay marka meel dheer gaarsiin muuqaalkan intifaaca dunya aakhira waa ku leeyahay aan gudagalno sheekadan xasaasiga ee hoos loo dhigay 10 sano maanta inaan daah karoon waxaan marqaati iigu filan dadka jooga xabsiga dhexe saraakiisha iyo howlwadeenada waxa aan ka hadlayo runtiis ayaga og sida aawadeed waxaan rabaa inaan sabab u noqdo adiguna aad sabab u noqotid in miskiinkan la dulmiyay oo cadaalad degdeg ah helo qofka aan ka hadlayo magaciisa intaan idin sheegin sawirkii ugu horeeyay ee sawirka kaliya ee laga haayo waa kan awjidin wajiga intaas waa tirtiran yahay sababtu maxay tahay waa sawirkii laga qaaday markii ugu horeysay ee gacanta ciidanka ama cadaaladda uu galay waxay ahayd 23 bishii 12aad 2013 waxa laga soo xiray ninkan degmada Horwadaag ee gobolka Banaadir waxaana lagu magacaabaa Sharafow Garaare Geedi aad bay igu adkaatay ninkan inaan muuqaalo iyo sidoo kale sawiro hadda aan ka helo waayo kiiskiisa lama rabo in banaanka la keeno sida aawadeed si kasta oo aan u gali karnay u dabagali karnay ilaahay wuxuu noo fududay inaan kan soo helno iyo xogtiisa oo dhameystiran sida aawadeed sheekadiisa aad ay xanuun u leedahay ninkan beel ahaan wuxuu ka soo jeedaa Jareer beesha Jareer weyne la yiraahdo waa nin xaasla ah caruurna u joogtay sida la sheegay 10 sano xabsi waxa uu ugu jiraa markii uu gaari jiirsiiyay oo shil ah ku talagal aan ahayn nin magaciisa lagu sheegay ilaaha u naxariistay maxamed xasan faarax marxuumka beel ahaan waxa uu ka soo jeedaa Murussade markii ninkan maxkamadda iyo cadaaladda la horgeeyay waxa lagu xukumay oo kiiskiisa la dhageystay ninka inuu shil ku dilay ayaa cadaatay oo kas uusan u dilin sida aawadeed waxa lagu xukumay 6 bilood oo xabsiya iyo in uu iska bixiyo lacagta diyada ama diyadii uu bixiyo 6 bil markii uu soo dhameystay reerkiisa waxay diyaar u noqdeen inay diyada ka bixiyaan diyadii ayaa la diyaariyay balse waxa la waayay cirib iyo jaan halka ay dhigeen qoyska marxuum maxamed xasan faarax sida aan ka xigtay saraakiisha xabsiga dhexe iyo madaxda kaleba حتى أرنتيس waxaa soo farageliyay hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee ajaanibta ah ama reer galbeedka waxay ayagu dhankooda balan qaadeen inay xitaa diyaar leeyihiin inay ayaga kaashaan waxa ninkan lagu haysto kiiskiisa ayay runtii aad uga mugoodeen waayo subax kasta marka banaanka loo soo bixiyo maxaabiista ninkan timihiisa raamay noqdeen dadka waa ka dhinac socmay waxa uu leeyahay anigu Jareer ayaan ahay sida aawadeed cadaalad ma helaayaba aniga xukunkeygii 6 bilood waa dhameystay ninkaasna kama ayay ahayd kas uma dilin oo shil waa dhacaa diyadina waa la ogol yahay ilaa diyada in la qaato ama la bixiyo ilaahay waa baneeyay mugta cideeda diyadii diyaar leeyihiin dadkii aan la heenin maxaan sameeyaa ayuu leeyahay dadka dhinac ayuu iskaga soocaa maxaabiistu aad uma dhaxgalo waxaana la sheegay mar kasta in la arko isagoo meel gidaar gees ku naban oo ilmeenaya saraakiisha iyo taliyaasha xabsiga dhexe intooda maqashada leh waxay sheegeen inay aad ninka arintiisa beerka uga xanuujisay ka damqanayaan hadaba maxaa ka cusub 10 sano kadib ilaa iyo hadda oo xabsiga ku jiro wali qoyskiisa waxay taagan yihiin waxaan diyaar u nahay haba yaraata ama haba badnaata ee meel walba aan u gali karna aan u galnay inaan bixino lacagta ama diyada waxa aan qoyskaas isku fahmi leen diyadii ninkaas laga dilay ee shirka ku dhintay laakiin cidii lama haayaba haddaba Soomaaliyeed ninkan meesha waa ku baaba'ay aad ayuuna ugu rafaadsan yahay runtii sidaad ka warhaysiin cadaalad darro aad u xun ayaa ka jirta xabsiga dhexe waxaa ku guda jirnaa kiisas kan ka sii xanuun badan laakiin ninkan arintiisa runtii waxa ay aad iyo aad runtii igu abuurtay walwal badan sababtoo asaga wuxuu aaminsan yahay in
dhibaatada haysata ay ugu horeyso yani abuurka ama meesha dadka uu ka dhashay wuxuu leeyahay sida dadka la sheekaystay ay sheegeen ama saraakiisha oo markay arkaan uu u sheego inuu isyasaayo dadka kale xitaa uusan weligiis ku taamin cadaalad heli doono waxaanu leeyahay aniga iyadoo reerkayga ay diyaar ahaayeen in ay si kasta ay iga bixin karaan iga bixiyaan diyada in dadkii la waayay welina xabsi aan ku jiro taasoo iyada naftigeeda u baahan dib u eegis in la sameeyo maanta sidaad ogtihiin golaha shacabka fartay ku fiiqaayeen xabsiga dhexe waxa ka jira aad bay runtii u ajidsanaayeen in meeshaas dhibaato ka taagantay dhibaato waa ka taagan tahayo dib in loogu noqdo waay kiisas badanaa jira waxyaabaha aniga aan la yaabo waxaa ka mid a xabsiga dhexe hadda lii xaqiijiyey oo aan si gaara maalin uga soo hadli doonaa xabsiga dhexe waxaa ku xiran nin waalan nin maskixiyan waalan sida la ii sheegay ninkaas waxaa la sheegay in haweeney uu ilig ka jibiyey ama gacan qaad uu sameeyey xoogaa waxyeelo ay gaartay iliga horta waa waxay ka mid yahay meelaha qaaliga ah oo lacagaha badan in laga bixiyo mudan waa caadi ma ah ilka adduunka oo dhan iska yihiin ninkii marka waa la xukumay 10 sano hadda xabsiga ku jira sida la sheegay cid soo daba gashayna malaha kiiskiisa ilaa ay hadda markii la xukumayay ninka waa caafimaad qabay runta rabbi aan ugu jecel laakiin markii la xukumay kadib muddo waa waashay ninkii waa u qaadan waay waa ku dhuftay ilaa ay hadda xabsiga ku jira nin waalan waa la soo bandhigay media markii camera laga duubay waa la cararay waa la orday arrintiisina hoos ayaa loo dhigay waa la diiday marka waxaa la rabay in ninkan wixii rabaha lagu haystay caafimaad maskixiyan uu u baahan yahay ninka waa waalan ninka nin waalan wuxuu u baahan yahay daryeel waxaa la rabay in la soo daaweeyo priority la siiyo mudnaan la siiyo in daawo loo helo marka daawo loo helo kadib haddii uu soo fiicnaado lagu soo celiyo meesha bedelka inta ninka asagoo waalan xabsi lagu heen lahaa maalin gaar ah ka hadli doonaa muuqaaladiisa iyo xogtiisa oo dhammaystiran insha allah isaga kaliya maahan kuwo kale oo badan balse maanta qodobkaasaa taagan laba beelood aan rabaa marka inay hadda arrintan aan farta ku fiiqo war beesha jareer weyney iyo beesha murusaday ninkan dhiiggiisa haddaad leedihiinna de waa wiil idinka dhashay waaye ninkan miskiinka ay meesha ugu xiran diyada ka qaata isagana xabsiga kasoo bixiya waa ku rafaatay isku taga xildhibaanada labada dhinac ee golaha shacab ku jiro isku taga oo arrintan ka xaltama oo taga dhiig waaye xal ma lahan laakiin ehelkii raadiya hala raadiyo hadday nool yihiin haddayse ninkaa dadkii adduunka u joogay dhinteenna haddee ilaahayaa og sida laga yeeli karayo culimadee arrintan dib ha loogu noqdo marjaceeda go-aanka laga qaadan kara ha laga qaato ninka xabsiga waa ku rafaaday asalaamu calaykum ma ogtahay in dhakhtar shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo adeeg jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faahfaahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya hayay waa Imara Luxury Homes Limited hoyga quruxda leh halka aad ka helayso waa Nairobi ee ha ka maqnaan Imara Luxury Homes Limited waxay guryaha ka dhistaa Nairobi gaar ahaan xaafadda Parkland dhismaha koobaad waxa uu leeyahay adeeg kasta sida goobihii cibaadada dhismaha waxa uu leeyahay madaaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray cafeteria supermarket farmashi goobaha caruurtu ku ciyaaraan iyo adeega ambalaas xaaladaha degdega ah habka lacag bixintu waa hab sahlan waxaana socda barnaamijka 9 maalmood ee ku eeg 3 bisha September ee la magac baxay hoygu waa muhiim ah hanti yeelo kaasi oo ah qiimo dhibis kala bar ah in aad guriga rabto ku iibsanayso sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaar ah wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road Hurlingham Nairobi Kenya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda